الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. marka hore ilaahay baa mahadle wafdigii uu hogaaminayay madaxweynuhu nabad ku soo celiyay wadankii oo nabada. madaxweyne gudoomiyaha guurtida, gudoomiye ku-xigeenka wada baarlamaanka, golaha wasiirada, madax dhaqameedka, sanadnada, haweenkii sharafta leh, dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waa maalin taariikhiya. albaabada bini aadmiga khayrkuna marba mid baa furma. maanta wafdigaa baxay ee 5 cisho inaga maqnaa, 5 maalmood waxay noqon doonaan 5 maalmood oo taariikhda Soomaaliland gala. natiijada ka dhalatayna adduunyadu maanta kursi bay ku wada fadhidaa. wixii ka soo baxay iyo halkay gaadhay taariikhda Soomaaliland waa kala soconnay miidiyaha. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dariiqa ayna kulansiiyey ee ina waafajiyey inuu khayrkeegana ina waafajiyo oo ilaahay aan barino. waa albaab furaya dhowr iyo 30 sannadood, albaaba aan garaacanay oo Soomaaliland ay ku raadinaysay in adduunyadu ictiraafto. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noqdo albaabkii arsaaq waasaca iyo ictiraaf iyo ummadoo midowda, albaabkii inoo furiyay safarkaasi oo taariikhiya. ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu inoo aqbale. aamiin aan idhaahno. madaxweyne iyo wafdigaaguba waxaan idinku soo dhaweynayaa anoo afka ku hadlaya ummadda Somaliland. wadankii oo nabada, waa mahad ilaahay inaad timaadeen idinkuna nabad qaba. intii aad joogteenna wixii aad ummadda adduunyadu intay aragtay Somaliland in badan oo arag baa aragtay, in badan oo aqoon baa baratay, in badan oo aan aqoon oo waxaad u haysatay dal aan jirin baa maanta aragtay inuu yahay dal jira oo ku tamaniyaya siday ugu yeedhi lahayn Somaliland, siday xula qabsan lahaayeen. waa 5 maalmood oo taariikhda Somaliland wax ka bedelaya. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noqdo albaab khayr qaba. hadalka waxaan dhaafi iyo wixii la soo kulmeenba madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland.